waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan oo laga maqlayo duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib maalmo ay markaasi magaaladu ku jirtay xaaladda ganaana ciidamadii ugu badnaa oo kasii qulqulayo furimaha dagaalka iyo waliba sidoo kale khasaare xoogan oo la gaarsiiyay ciidamadii maamulka Soomaaliland ee saaka weerarka ku soo qaaday furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada dadka deegaanka xasuuqii ugu badnaa oo halkaasi ka dhacay saraakiil sarsare oo nolosha lagu qabtay iyadoo waliba ciidamada dadka deegaanka ay soo bandhigeen saraakiil sarsare iyo waliba darajadii ay ka haysteen ciidamada maamulka Soomaaliland maalmihii ugu dambeysay maamulka Soomaaliland ayaa dhaqdhaqaaq xoogan ka waday duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo waliba maamulka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen in 6 bari oo dagaal ay markaasi geli doonaan 10ka dambe ee bisha Ramadaan waxaana maanta oo Arbaca dagaal xoogan uu ka socdaa dhanka Toga Maraaga iyo waliba sidoo kale galbeedka magaalada Laascaanood iyadoo waliba khasaare xoogan uu halkaasi ka dhashay waxay idin soo gudbin doonaa dhimashada iyo waliba sidoo kale khasaaraha sida rasmiga ah haatan loo shaaciyay ciidamada dadka deegaanka ayaana soo bandhigay hub iyo waliba gaadiid dagaal oo markaasi ay sheegeen inay ka furteen ciidamada maamulka Soomaaliland dhinaca kale waxay idin soo gudbin doonaa maxaabiista tiradeeda iyo waliba garaad cali oo ku dhawaaqay war la yaab leh iyadoo waliba ciidanka maamulka Soomaaliland maalmihii ugu dambeysayba ay soo dhoobeen ciidamada aad u fara badan oo sheegeen inay ku qabsan doonaan magaalada Laascaanood iyo waxa markaasi dhawajabka ku riday iyadoo waliba mahad cambaashe maalmihii ugu dambeysayba khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay saraakiisha beesha Isaaqa ku sugan saldhigga weyn oo Gooja Cade iyo waliba ciidamada uu wato mahad cambaashe ilaa iyo dhowr marna waxa la sheegay inay ku dagaalameen agaarka xerada weyn ee Gooja Cade oo ah saldhigga kaliya ciidamada maamulka Soomaaliland ay kaga sugan yihiin gobolka Sool waxay soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay waliba khasaaraha halkaasi ka dhashay haday tamarkaadii kugu horeysay si share garab barnaamijka oo la wadaag asxaabtaada kaleeto aynu ku bilownay dagaal xoogan ayaa saaka oo markaasi dib uga bilowday duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo waliba labadii bari ee la soo dhaafay ay magaalada Laascaanood ku jirtay xaalad deganaana saaka magaalada Laascaanood waxa ay ku bariisatay madaafiic iyo waliba weerar markaasi maamulka Soomaaliland ay laba jaha kaga soo qaadeen ciidamada dadka deegaanka oo maalmihii ugu dambeysayba gurmad xoogan ka heliyay beelaha ay walaalaha yihiin ayaa haatan waxa gabi ahaanba ay xidheen aagga hore waxaana u suurtagal weeday ciidamada maamulka Soomaaliland inay ka soo baxaan Toga weyn ee Maraaga wana goobta haatan u dagaalka sida weyn uga socdo walow dhanka galbeedkana uu ka socdo dagaal ciidamada dadka deegaanka ayaa soo bandhigay jab xoogan oo u geysteen unugyadii ka tirsanaa ciidamada maamulka Soomaaliland ee weerarka ku soo qaaday saldhigyada dadka deegaanka waxaana haatan halkaasi ka dhacay mashaqo aad u ballaaran oo la gaarsiiyay ciidamada maamulka Soomaaliland oo 6dii bari ee la soo dhaafay ku hanjabaysay in dagaalo markaasi maalmo badan soconaya ay ku qaadi doonto magaalada Laascaanood dagaalkan oo ugu magac dartay wajiga labaad ee lagu xoreynayo magaalada Laascaanood ayaa Soomaaliland ciidamadii ugu badnaa ay soo dhoobtay saldhigga weyn ee Gooja Cade guud ahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin agagaarka saldhigga weyn ee Gooja Cade waxaan la arkay ciidamadii ugu badnaa markaasi ciidamo laga soo aruuriyay beelaha iyo waliba sidoo kale ciidamo markaasi si xoog looga soo kaxeeyay jaamacadaha iyo waliba sidoo kale iskuulada maamulka Soomaaliland ardayda jaamacadaha ayaana si toos ah haatan ay maamulka Soomaaliland dagaalka u soo galiyeen waana mid keentay jabka mar walba gaariya ciidamada maamulka Soomaaliland oo si joogto ah markaasi ula kulma xasuuq iyo waliba sidoo kale kala caarar markaasi laga furanayo hubka iyo waliba gaadiidka dagaal ee markaasi ay ku soo weerartagaan dhinaca kale maamulka Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeysay isweydiinaya guuldarrada joogtada ay soo gaarayso ciidamadooda waxaana arintaasi ay u sababeeyeen mahad cambaasho ka soo jeeda beesha dhulbahatay isla markaana kamid ah saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland u hogaaminaysa dagaalka ay kaga jiraan magaalada Laascaanood dhowr mar ayay isku khilaafeen saraakiisha beesha Isaaq ee ku sugan saldhigga weyn ee Gooja Cade waliba mahad cambaasho halkaasi oo dariir ay ku dhaxmartay isla markaana Muuse Biixi uu soo dhaxgalay isagoo u arko halyeyga kaliya markaasi wax badbaadinaya isla markaana ciidamadooda ku hayo saldhigga weyn ee Gooja Cade hadii dagaal u dhaxmarana gabi ahaanba ay suurtagelayeen in ciidamada beesha Isaaq ay ku sugnaadaan saldhigga weyn ee Gooja Cade si kastaba dagaalka saaka halkaasi ka qarxay ayaa guuldarro weyn ay kala kulmeen ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana ciidamada dadka deegaanku ay soo bandhigeen saraakiil iyo waliba mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ciidamadaasi oo nolosha ay ku qabteen mid kamid ah saraakiisha ciidamada SSC ayaana soo xidhay darajooyinkii ciidamada maamulka Soomaaliland uu ku lahaa taliyaha guud ee ciidamada markaasi ku sugan saldhigga weyn ee Gooja Cade ee maamulka Soomaaliland oo nolosha lagu qabtay waxa dhinaca kale ay sheegeen in saraakiil kale halkaasi ku dhinteen iyadoo waliba ciidamadii maanta weerarka soo qaaday intooda badan ay nolosha ku qabteen ciidamada dadka deegaanka shacabka iyo waliba ciidamada dadka deegaanka oo iyagu u diyaarsan in dhagar walba ka hortagaan ayaa maamulka Soomaaliland
hanjabaadihii dhowrkii beri ee lasoo dhaafay aysan wax jawaaba ka bixin iyadoo weliba jawaabtii ugu horreysay ay maanta bixiyeen islamarkaana ay nolosha ku qabteen dhammaanba ciidankii weerarka soo qaaday ee maamulka Somaliland. si kastaba magaalada Laascaanood oo maalmihii ugu dambeysayba markaasi aan wax dagaal ah ka dhicin ayaa saaka ku waabarisatay madaafiic tiro badan iyo weliba sidoo kale xasuuq maamulka Somaliland ay ugu talagaleen inay mar labaad ka geystaan. hanjabaadaha sida isdaba jooga uga soo baxaya maamulka Somaliland wax jawaab ah maalmaha dambe kama aysan bixin garaadada iyo weliba sidoo kale saraakiisha ciidamada ACC waxaana gabi ahaanba ay ka gaabsadeen warbaahinta iyadoo weliba ay si cad u sheegeen isimadu inaysan markaasi wax jawaaba ka bixinaynin hadallada meelwaaga ee ka soo baxaya maamulka Somaliland ee ku aadan in ciidamada dadka deegaanka ay ku tilmaameen argagixiso iyo weliba sidoo kale in ciidamo kale ka soo ruqansaday deegaano kale ama maamulo kale markaasi ay ku sugan yihiin gobolada ACC. garaad jaamac garaad cali iyo weliba qaar ka mid ah isimada oo hadlay ayaa sheegay in ciidamadooda ay iskaga filan yihiin cadow kasta islamarkaana Somaliland iyo weliba Djibouti ay dhagaha ku dhufan doonaan. waayadii dambe waxaa si toos ah loo shaacinay in ciidamo Djiboutian ay weliba hubka ugu badnaa oo dalka Djibouti ka yimid in markaasi uu yimid duleedka magaalada Laascaanood kaasi oo la rabo in mar kale lagu xasuuqo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Somaliland ayaa ilaa iyo xilligan aan garwaaqsan in halkaasi xasuuq ka geysatay iyadoo weliba beesha caalamka markaasi ugu baaqeen in gabi ahaanba ciidamadooda kala baxaan saldhigga weyn ee Goojacade iyo weliba duleedka magaalada Laascaanood taasi oo ah xalka kaliya ee lagu badbaadin karo shacabka magaalada Laascaanood ee xasuuqa iyo weliba tacadiyada kala kulmayo madaafiicda tirabeelka ee markaasi ay soo ridayaan maamulka Somaliland. waayadii dambe waxaa magaalooyinka waaweyn ee maamulka Somaliland ka socda gubaabin iyo weliba markaasi beelaha oo haatan si toos ah dagaalka u soo galiyo waxaana beelaha dhammaan dega maamulka Somaliland lagu khasbaya in beel kasta markaasi ay keento in ka badan 390 kamid ah dhalinyaradooda isla markaana ay dagaalka soo galiyaan. Muuse Biixi ayaa gabi ahaanba kala diray golihii wakiilada wasiirada iyo weliba sidoo kale golaha guurtiga waxaana gabi ahaanba ugu baaqay inay tagaan furimaha hore ee dagaalka iyadoo weliba uu mushaarkii ka goostay isla markaana uu sheegay in dhaqaale la'aan ay soo wajahday maamulka Somaliland. hay'adaha deeq-bixiyaasha iyo weliba sidoo kale wadamada taageera maamulka Somaliland ayaa waayadii dambe waxa ay si toos ah u sheegeen inay dhaqaalihii ka jarteen isla markaana ay mariyeen dhanka maamulka Puntland si far loogu gargaaro shacabka ay ciidamada maamulka Somaliland ku xasuuqayaan magaalada Laascaanood. in ka badan 500 oo kun oo qoys ayaa ka qaxday magaalada Laascaanood iyo daafeheeda waxayna galeen maamulka Puntland iyo dhanka dowladda deegaanka Soomaalida. dhaqaalihii dhammaan maamulka Somaliland lagu bixin jirayna waxa ay hay'aduhu si toos ah u sheegeen in dadkaasi lagu caawin doono isla markaana lagu garab istaagi doono. waa mid keentay in Somaliland maanta si cad ugu dhawaaqday inay kala dirtay golihii wasiirada kuwa wakiilada iyo weliba golaha guurtiga oo markaasi mushaar tiro badan ka qaadan jiray maamulka Muuse Biixi iyo weliba mucaaradka ayaa haatan gorada isla galay iyadoo weliba wadamada markaasi Somaliland ku taageera dulmiga iyo weliba garab istaaga u hayo ayaa haatan si cad markaasi ugu sheegeen in ay tahay arinta kaliya ee lagu badbaadin karo maamulkaasi rejiimka in doorasho la qabto isla markaana ay gabi ahaanba isbedeli doonaan hanaanka dagaal ee ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo weliba arintaasi jawaab kulay ka bixiyeen isimada iyo weliba dhaqanka ee gobolada ACC oo iyagu si cad u sheegay hatta hadii doorasho la qabto inaysan waxba iska bedelayn dagaalka lagu xoreynayo ama markaasi maamulka Somaliland ciidamadooda ee isirsifaynta ka wada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. 16 sano oo dagaal toos ah iyo weliba mid markaasi dadbanba uu ka socday gobolada ACC dadka deegaanka iyo weliba isimadoodu waxay haatan garwaaqsadeen inay tahay markii ay ka xoroobi lahaayeen dulmiga weyn ee maamulka Somaliland ay ku hayaan gobolada ACC Khaatume State of Somalia ayaa haatan si toos ah u helayso garab istaag ay ka helayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba dowladaha caalamka iyadoo waayadii dambe ay soo baxaysay in wasaaradaha kala duwan ee dalka Soomaaliya ay ku kala jaban yihiin hanaanka markaasi lagu garab istaagayo shacabka lagu xasuuqay gobolada ACC ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo weliba madaxweynuhu ay haatan si toos ah u garwaaqsadeen inay tahay shacabkaasi in la badbaadiyo haddii kale tale la waayi doono maamulo kale oo ka tirsan dalka Soomaaliya kuwaasi oo ayagana ka dhirfi doono hanaanka markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ee uga safatay shacabka lagu xasuuqayo gobolada ACC. maamulada sida tooska haatan loo waayi doona ayaa kamid ah maamulka Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo weliba Puntland oo iyagu mowqifkooda cadeeyay isla markaana sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si cad markaasi uga safatay hanaanka markaasi Somaliland ay ku xasuuqayso shacabka dulman ee gobolada ACC. si kastaba dagaalkan maanta ka bilowday magaalada Laascaanood ayaa u muuqda midkii markaasi gabagabada iyo weliba
ugu dambeeyay ciidamada maamulka Somaliland oo iyagu maalmihii ugu dambeysay ku hanjabayay inay dagaal iyo waliba dulmi halka ka geysan doonaan 6 bari oo dagaal ayayna ku dhawaaqeen maalmihii ugu dambeysay maamulka Somaliland oo sheegeen inay ku qabsan doonaan gacan ku haynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool suurtagalnimada arrintaasi waxaa diiday ciidamada dadka deegaanka iyo waliba kuwa gurmadka Hiil Harti oo iyagu maalmihii ugu dambeysay ku soo qulqulayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhinaca kaleeto waxa ay wadaan maamulka Somaliland 6 qodob oo markaasi ay sheegeen inay ku fashilin doonaan ciidamada huwanta ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 6 qodob ayaana kala ah in markaasi la iska horgeeyo bulshada iyo waliba ciidamada markaasi Hiil Harti ee ku sugan magaalada Laascaanood hadallada markaasi lagu kala fogeynaya ayaana si toos ah u bilowday iyadoo 2 bari ka hor laga helay mid kamid ah gabdhaha markaasi sida weyn u taageeraya ama u horkacayay hanaanka lagu badbaadinayo shacabka oo sheegeen in lagu kufsaday duleedka magaalada Laascaanood sidoo kale tan meydkeeda laga helay agaarka hotel Xamdi oo ay ku sugnaayeen ciidamada Hiil Harti ee markaasi ka yimid dhanka maamulka Puntland waana arrin markaasi la rabo in lagu suurad xumeeyo ciidamada Hiil Harti ee markaasi soo gaaray magaalada Laascaanood dhinaca kale waxaa la dilay mid kamid ah ganacsatada magaalada Laascaanood waxaana ciidamada maamulka Somaliland ay saacad u sheegeen in dilka ninkaasi ay ka ciidamada Hiil Harti waana mid markaasi lagu kala fogeynayo shacabka iyo waliba ciidamada markaasi Hiil Harti ee ka yimid dhanka maamulka Puntland dhinaca kale maamulka Somaliland ayaa wada talaabooyin lagu khaarijinayo garaadada iyo waliba isimada waana arrin markaasi iyadana keeni karta in gabi ahaanba la kala fogeeyo shacabka iyo waliba ciidamada ACC dhinaca kale maamulka Somaliland ayaa wado markaasi faraxumeyn iyo waliba sidoo kale kufsi loo geysanay dadka reer miyiga ee agagaarka Gooja Cade iyo waliba tuulada Samaka kuwaasi oo meydkooda iyo waliba dhaawacyadooda la keenayo duleedka magaalada Laascaanood si gabi ahaanba loogu eedeeyo in ciidamada Hiil Harti ay ka dambeeyaan wadaanta wadaal waxyaabaha ka soo kordho hadalladaasi qalafsan ee ka soo baxay maamulka Somaliland iyo dulmiga ballaaran iyo waliba dagaalada saaka dib uga qarxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo waliba sidoo kale hay'adaha gargaarka iyo waliba xuquuqul insaanka hadallada ka soo baxay qaybaha dambe wararkan aad ku maqli doontaan tan inta barnaamijkan waxay ku kulmi doonana waxay idinka tahay sidaas iyo amaanaad